nidaamka ka jira Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu adeegsadaa ciqaab kala duwan oo cidna aan aqligeeda ku soo dhacaynin. waa marka uu goosto inuu ciqaabo shakhsiyaad mucaarad ku ah nidaamkiisa ama farta lagu tuhmo inaan si dhammaystiran u taageersaneen hogaamiyaha kaliya ee waddanka Kim Jong Un. sida ay sheegtay jariirada Mirror ee dalka Ingiriiska, jenaraal ka tirsan ciidanka oo aan magaciisa la sheegin ayaa xilli dhoweyd waxa lagu dilay waddo shabahda mid lagu soo bandhigay filim uu hadda ka hor jiray James Bond. jenaraalkan oo lagu tuhmay inuu waday inqilaab military ayaa waxaa lagu riday barkad uu ka buuxo kalluunka halista ah ee Albirana ee dadcunka ah kaasoo ilkiisa kaga caanamaalay jenaraalka. ciqaabtii la marsiiyay kuma aanay koobneen inta aan kalluunka loo tuurin waxaa laga jaray gacmaha iyo xubnaha kale oo jirkiisa ka mid ah si aanu isku dhaqdhaqaajin marka uu kalluunka hilibkiisa kala goosanayo. qabiirka arrimaha Aasiya John Himges ayaa waxa uu u arkaa in nidaamka diktatoriga ah ay u fakaraan in hababka ay dadka u dilaan ay tahay layli muhiim ah si ay gacan bir ah ugu qabtaan xukunkooda dadka ka soo horjeeda. sanadkii 2017 ayaa mas'uul Kuuriyada Waqooyi ka baxsaday oo la yiraahdo Hin Yong Lim oo xilli ku qasbanaaday inuu ka qayb galo dil lagu fulinayay 11 fanaan ah oo lagu dilayay suuq iyo hubka diyaaradaha lagula dagaalamo. shakhsigan oo goobjoog ah waxa uu sheegay in fanaaniinta ay ku eedeysanaayeen inay ka qayb galaan filim anshax darro ah. abriiltii hore ayaa wakaaladda wararka ee Japan ay soo xigtay in 4 mas'uul oo xabad lagu dilay kadib markii uu fashilmay shirkii hogaamiyaha Kim Jong Un iyo madaxweyne Trump. mas'uuliyiintan ayaa lagu eedeeyay inay macluumaad muhiim ah u gudbinayeen dhanka Mareykanka, arrintaas oo keentay inuu shirka fashilmay. shirkaas oo Kim Jong Un uu ka filayay in loogu fududeyn doono cunaqabataynta xooggan ee in muddo ahba dalkiisa saarneyd. hababka uu dadka u dilay waxaa ka mid ah inuu u tuuro ay gaajaysan. dhanka eedada Kim waxay wax ku dishaa suntan kadib markii ay dhalishay habka uu wax u dilo wiilka ay eedada u tahay. si kastaba waddanka dunida inteeda kale ka go'doonsan siyaabaha ugu dhibka badan ee dadka loo dilo waxaa ka mid ah in qofkii oo nool la gubo oo dab lagu shido. Hanad Ali Guleed, goobjoog, subax wanaagsan.